Jamhuuriyadda Panama ama Panama waa mid ka mid ah dalalka ugu muhiimsan marka la eego dhanka ganacsiga, wuxuuna dalkan la gaar yahay arrimo badan oo mudan in la dul istaago. Muuqaalkan ayaadna kaga bogan doontaan xogaha ugu muhiimsan ee dalkan ku saabsan. Panama waa mid ka mid ah dalalka dhaca labada qaaradood, wuxuuna dhacaa qaaradda Koonfur Ameerika iyo qaaradda Waqooyiga Ameerika, wuxuuna sidoo kale ka mid yahay dalalka dhaca bartamaha Ameerika. Waxaa labada dacal ka saaran labada badweyne kala ah Pacifiga iyo Atlantiga, waxaana si gaar ah dhanka waqooyi uga saaran badda Caribbean-ka oo ka tirsan badweynta Atlantiga. Wuxuuna xad la wadaagaa dalalka Costa Rica iyo Colombia, waana dal dhulkiisu gaarayo in ka badan 75,000 kiilomitir isku wareega. Waa dhul cimilo ahaan kulul oo ku dhow dhulbaraha, waana dalka uga xageeya dhanka koonfureed marka la eego dalalka qaaradda Waqooyiga Ameerika. Wuxuuna sidoo kale ka mid yahay dalkan dalalka leh xeebo ka kala tirsan laba badweyn, waxaana laga yaabaa inaad labada badweyn ee Pacifiga iyo Atlantiga ka arki karto halka ugu sareysa buurta ugu dheer dalkan ee lagu magacaabo Volcan Baru. Waa dalka kooban ilaa 1,500 oo jasiiradood, waxaana ka mid ah jasiiradda ugu weyn bartamaha Ameerika ee lagu magacaabo Coiba. Qofka jooga dalkan wuxuu awoodaa inuu maalin gudaheeda dabaalasho u aado xeebaha badweynta Pacifiga iyo badweynta Atlantiga. Dhulkan maanta la yiraahdo Panama waxaa la qiyaasaa inay dadku gaareen 10,000 oo sano ka hor, waxaana sidoo kale la tilmaamaa inay dadkii deganaa dhulkan ahaayeen dadka asalka ah ee Ameerika sida Cueva iyo Chacuan. Gumaystihii Isbaanishka ayaa gaaray dhulkan bilowgii qarnigii 16aad, wuxuuna dalkan ka talinayay ilaa 3 qarni, waxayna Panama Isbeen ka xorowday 1821, balse isla sanadkan waxay ka mid noqotay dowladdii la oran jiray Gran Colombia oo ay ku midoobeen dalalka maanta la yiraahdo Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia iyo Venezuela. Balse dowladdan waa ay kala qaybsantay, waxaana ku soo hareen Colombia iyo Panama oo kaliya. 1899 ilaa 1902 waxaa dhacay dagaal sokeeye oo lagu magacaabo dagaalka 1000 maalmood, kaasoo u dhaxeeyay dowladda iyo mucaaradka Colombia. Markaasna Panama Colombia ayay ka tirsaneyd. Haddaba 1903 ayay Panama ka xubsiibatay Colombia, waxayna noqotay dowlad madax bannaan. Dalkan wuxuu leeyahay 2 maalin oo uu dabaaldego madax bannaanidiisa, waa 28 November oo uu ka xoroobay gumaystihii Isbeen, iyo 3 November oo uu dabaaldego madax bannaanida uu Colombia ka qaatay. Madax bannaanida buuxda ee Panama ka qaadatay Colombia waxaa si weyn u taageeray Mareykanka, maadaama uu aad u daneynayay in uu la wareego mashruuca lagu dhisayay kanaal biyoodka Panama. Faransiiska ayaa kolkii hore isku dayay in uu qodo kanaalkan isku xira labada badweyn ee Pacifiga iyo Atlantiga, balse waa uu ku fashilmay sababo dhaqaale xumo darteed, waxaana kolkaasi ku dhinteen ilaa 20,000 oo ka mid ah shaqaalihii qodayay kanaalkan. Haddaba hantida taalay kanaalkan muddo kadib Mareykanka ayaa damcay inuu gebi ahaanba iibsado, isla markaana howsha qodidda kanaalkan uu la wareego, balse waxaa is hortaagtay dowladdii Colombia, waxayna markaasi Panama hoos joogtay Colombia. Sidaas daraaddeed ayuuna Mareykanku uga shaqeeyay in ay Panama noqoto dal madax bannaan si uu mashruuca kanaalka ula wareego. 1914 ayuu Mareykanku soo gabagabeeyay dhismaha kanaalkan, wuxuuna maamulayay ilaa 1999, markaas oo ay Panama la wareegtay maamulka kanaalkan muhiimka u ah dhaqaalaha iyo ganacsiga dunida. Midabada calanka dalkan iyo macnaha ay u taagan yihiin aragtiyo kala duwan ayaa laga qabaa, balse macnaha loo badan yahay waa in midabka cad uu u taagan yahay nabadda, guduudkuna uu u taagan yahay falsafadda siyaasadeed ee liberalismka, xidigta buluugga ahina ay u taagan tahay daacadnimada iyo daahir ahaanshaha, xidigta gaduudanna ay u taagan tahay sharciga iyo kala dambeynta dalka. Sida guud waxaa jirta aragti dhahaysa in calanka dalkan midabadiisa laga soo minguuriyay midabada calanka Mareykanka, maadaama uu Mareykanku gadaal ka riixay madax bannaanida dalkan. Tirada dadka dalkan waa ku dhowaad 4 milyan, wuxuuna dalkan ka mid yahay dalalka ay dadkoodu u badan yihiin reer magaalka, waxaana magaalooyinka dalkan ku nool 68% oo dadka dalkana. Magaalada ugu weyn dalka waa magaalada Panama oo ah magaalo sidata magaca dalka. Haddii aad Mareykanka ku nooshahay gaar ahaan gobolka Florida, waxaa laga yaabaa inaad taqaano magaalo la yiraahdo Panama, balse sidoo kale caasimadda dalka Panama waxaa la yiraahdaa Panama, waxaana sidoo kale gobolka ay dhacdo la yiraahdaa Panama. Dalka, magaalada iyo gobolkuba magacoodu waa Panama. Dabcan waa magaalada ugu weyn dalka, waxaana ku nool dad ka badan 1 milyan. Magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkana waxaa ka mid ah Colon, David iyo La Chorrera.
inta badan dadka dalkan ama boqolkiiba 65 waa dadka la yiraahdo mestizo oo ah dad ay iska dhaleen dadka asalka iyo cadaanka dhulkan yimid waxaana sidoo kale tiro yar ka ah dadka dalkan Amerindiyaanka madowga iyo cadaanka guud ahaanna intooda badan dadka dalkan waxay haystaan diinta Kirishtaanka in badan oo dadka dalkan ayaa wali si joogto ah u dabaqa dhaqankooda soo jireenka waxaana xusid mudan in dadka asalka ah ama hindida xasaas ee dalkan inay wali ku hadlaan luqadahooda wadaniga balse dhaqanka uu gumeystihii Isbaanishka dhulkan kaga tagay wali waa mid muuqda oo luqadda rasmiga ah ee dalkan waa luqadda Isbaanishka waxayna dadka ku hadla luqadda Isbaanishka ee dalkan la adeegsadaan luqadda Ingiriiska waxaana Panama lagu tilmaamaa dalka ugu Ingiriiska wacan marka la eego dalalka Latin America sababtuna waa xiriirka iyo isdhexgalka muddada badan kala dhaxeeyay dalka Mareykanka maadaama uu dhisay muddana uu gacanta ku hayay kanaalka Panama oo dunida muhiim u ah sidoo kalena dhaqaalaha Panama maanta kaalin weyn kaga jira waxaana sidoo kale dhaqaalaha Panama uu ku tirsan yahay sektarka adeegga iyo wax soo saarka beeraha wuxuuna dalkan leeyahay laba lacagood oo sharci ah waana Panamanian Balboa iyo lacagta dollarka dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka caalamka ee aan lahayn wax ciidan militariya waxayna tani timid kadib markii uu Mareykanku dalkan ku duulay 1989 si uu meesha uga saaro kaligii taliyihii dalkan xukumayay ee lagu magacaabayay Manuel Noriega waxayna Mareykanku ku eedeeyeen inuu dalka Panama ka dhigay saldhig lagu kala gudbiyo daroogada duulaankaasi uu Mareykanka ku wiiqay awoodda militari ee dalkana kadib Panama ma aysan yeelan cudud ciidan oo militari waxayna leedahay xoogag boolis ah oo xuduudaha gaarka ka haya waxaa jirta koofi lagu magacaabo Panama ama koofida Panama haddaba sida xaqiiqda ah koofidan waa mid ka soo jeeda dalka Ecuador ganacsato ayaa keeni jireen Panama iyagoo doonaya inay ka iibiyaan shaqaalihii qodayay kanaalka Panama waxaana kadib koofidan dunida ku faafiyeen dadkii ladnaa ee mari jiray kanaalka Panama harada ugu weyn dalkan waa harada Gatun oo ah haro gacan ku sameys ah oo ka tirsan kanaalka Panama dhanka kalena wabiga ugu dheer dalkan waxaa lagu magacaabaa Chukunake marka la eego dhirta iyo xayawaanka dalkan waa mid qani ku ah kala duwanaanta noolaha boqolkiiba 40 oo dhulka dalkana waxaa dabooleen keymo roobaadyo xitaa caasimadda dalkan waxay leedahay keen roobaad lagu magacaabo Parque Natural Metropolitano marka laga yimaado xoodka Amazon dhulka dalkan waxaa laga helaa keymo roobaadka ugu weyn galbeedka dhulka waxaa jira dhul lagu magacaabo Darien Gap oo si weyn ay u garanayaan dadka u tahriibay Mareykanka ee sii maray dalkan waa dhul isugu jira dhul biyoodyo waaweyn keymo iyo buuro mana lahan dhulkan wadooyin rasmi ah waxaana aad u adag in laga hirgeliyo wadooyin gawaaridu adeegsan karto marka la eego magaca dhulkan ee Darien Gap waxaa loola jeedaa 106 kiiloomitir oo u dhaxaysa tuulada Yaviza oo Panama ah iyo magaalada Turbo oo Colombia ah oo aan wax wado oo dhisan lahayn sababtuna waa dhulkan oo aad u adag kaabayaasha dhaqaale ee laga hirgelin karana ay aad u qaali yihiin waa mid ka mid ah dhulalka ugu halista badan ee maraan dadka safraa waxaana dhulkan sanadkii tagay ku dhinteen dad tiradoodu ka badan tahay 50 qofood